بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودا ولا مركا كوباد مقعيق عثمان waxaan ahay mid ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku dhexleh ganacsi aad u ballaaran isla markaana wadana fara badan ka shaqeeya kumbariga weyn ee caalamiga ah ee Forever Living waxaan doonayaa halkan insha Allah inaan ka siiyo xog warbixintan oo noqon doonta warbixinta koobaad ee aad qaadan doonto warbixintan marka dhamaysatana insha Allah qofka ku soo diray clipkan ama se warbixintan ayaad si toos ah aad u soo wici doontaa si aad u weydiiso su'aalaha aad qabto haddaba warbixintan kooban waxaynu kaga hadli doonaa taariikhda shirkadda wax soo saarka shirkadda iyo nidaamka dhaqaale looga sameeyo biidnillahi kariim ugu horeyn magacaygu waa Cusmaan sidaan horeba kuu soo sheegay waxaan bilaabay ganacsigan laga soo bilaabo 2019 bishii labaad sababta ugu weyn ee ganacsigan aan u bilaabay waxay ahayd inaan dhaqaale dheeriye ka sameeyo laakiin ilaahay wuxuu qadaray inay noqoto shaqada rasmiga ee maanta nolol maalmeedkayga wax ka badan aan ka soo saaro muddada 6 sano hadda sii gabagabaysmaysa ee ganacsigan ka shaqeynayay runtii waxaan ku bedelay noloshayda iyo nolosha dad fara badan oo Soomaaliyeed oo ku kala sugan dhammaan qaaradaha adduunka oo dhan insha Allah waxaan aad u jecelahay adigana inaad ka mid noqon doonto dadka ka faa'iideysan doona biidnillahi kariim waqtigan oo ah waqtiga ugu haboon ee aad fursadan ka faa'iideysan doonto waxaan ay suurta galay dhammaan hadiyadaha kala duwan ee aad warbixintan ku ogaan doonto muddo yar oo kooban ayay ugu suurta galeen haddaba qodobka koobaad inagoo isku taagayna waxaan doonayaa inaan warbixin ka siiyo muxuu yahay company-gan ugu horeyn walaalo si aad horta isbedel u gaadho waxaan rabaa si aad u ogaato inay fursadan kugu haboon tahay in kale maxay tahay sababta aad u interest garaynayso ama si aad u xiisaynayso ganacsigan ma dhaqaalahaaga inaad kordhisaa doonaysaa oo shaqo labaad ayaad ka fikiraysaa oo waad shaqaysaa ma waxaad jeceshahay inaad ganacsi samayso ma waxaad doonaysaa isbedel nololeed inaad gaadho oo aad ka gaari weyday nidaamyadii hore dhaqaalaad ku sameynaysay maxay tahay waxa aad doonayso waayo waxa la yiraahdaa sideedaba haddii aad doonayso isbedel inaad gaadho waa inaad marka hore isbedelka diyaar u tahay isbedel waxa sameeya qof diyaar u ah aragti ahaan inaad isbedesho ayaa muhiima ficil ahaan inaad isbedesho ayaa muhiima markaas ay noloshaaduna ay isbedel sameynaysaa haddaba walaalo adduunkan maanta aan joogno siyaabo kala duwan buu qofku dhaqaale u sameyn karaa adduun waxaynu joognaa maanta fursado fara badan ay yeelaan adduun waxaynu joognaa sidoo kale dad fara badan aanay fursadahaasi ka warqabin oo waxa weeyaan maanta si fudud uu qofku hanti fara badan uu ku tabci karo ayaynu joognaa iyadoo maanta tiknoolajiyadu ay guryaheena dhan wada taalo isla markaana taleefanadeena in badan oo kamid ah ay biilal uun inaga isticmaalayaan dad badan oo haddana waxa jirta maanta taleefanada iyo ma garanaysaa aaladaha aynu isticmaalno dhaqaale fara badan ku sameeya haddaba qofku waa laba nooc ama waxa weeyaan qof shaqaale ah oo waqtigiisa iib geeya isla markaana qof bini aadana u shaqeeya ama se waxa weeyaan waa qof iskii u shaqeysta oo isagu wax la soo baxa weeyaan haddaba maanta waxa weeyaan fursadda halkan aan ku soo bandhigaynaa waa fursad aad iska u shaqeysanayso ee ma aha fursad aad qof bini aadana aad u shaqeynayso ma aha haddaba walaalo waxa muhiima inaad ogaato waxyaabaha caqabadaha adka kugu hareeraysan si aad waxyaabahaasi ma garanaysaa inaad ku baraarugsan tahay waa muhiima si aad xalkiina aad u raadiso waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo xaaladaad waqti xaadirkani aad ku sugan tahay waa xaalad nooceeya tusaale ahaan inaad tahay qof shaqeeya laakiin saacado fara badan bixinaya oo nolol xamaalnimo ah ku shaqeeya inaad tahay qof shaqadoona oo wax camal ah haba yaraatee aan ahayn in aad tahay qof hooyo ama se qof guriga jooga oo banaankii ama shaqadii aad waayay yani xaaladda maanta aad ku jirto ee aad doonayso inaad bedesho waa xaalad nooceeya waxaan ku hayaa markaa walaalo fursadaad xaaladda iyo aad uga bixi karto isla markaana aad ku gaari karto natiijada aad doonayso meel dadkii ka horeeyay Soomaaliyeed ay tijaabiyeen isla markaana guulo waaweyn ay ka gaadheen ayaan insha Allah kula wadaagi doonaa ninka la yiraahdo Warren Buffett oo la yiraahdo oo kamid ah maalqabeennada waaweyn adduunka ayaa waxa uu yiri if you don't find a way to make money while you sleep you will work until you die haddii aanad helin
nidaam kuu shaqaynaya yacni xataa adiga oo hurda okay waxaad noqon doontaa qof weligii shaqo u jooga ilaa iyo inta uu dhimanayo yacni maanta adduunkanaan joogno dad fara badan iyagoo hurda ayaa xataa uu dhaqaale uu soo galaa maasha allah dadkaasaan ka mid ahay haddii aad combanigan kusoo biirtana waad ka mid noqon kartaa biidni illahi kariim haddaba walaalo combanigani muxuu yahay combanigan magaciisa waxaa la idhahdaa forever living waxaa la asaasay 1978 waana combani weyn oo waddanka maraykanka laga leeyahay muddadaa fogna shaqaynaya waana mid ka mid ah baraanada waaweyn ee caalamka isla markaana hadafka guud ee combanigani waxa weeye inuu soo saaro dad iyaguna caafimaad ahaana dhisan hanti ahaana dhisan waana labada baahiyood ee qofka biniaadankii uu aad iyo aad ugu baahi qabo wey meeshan waa meesha dadka caadiga ay ka sameeyaan natiijooyin aan caadi ahayn ay ka sameeyaan wey haddaba xaruntan iminka kuu muuqata waa xarunta guud ee combaniga laga maamulo oo ku taala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee waddanka Mareykanka combaniga wuxuu xarumo ku leeyahay wadana aad iyo aad u fara badan haddaba su'aashu waxa weeye maxaad ku dooranaysaa combanigan haddii baad ka mid noqoto maxay tahay sababta aad ku dooranayso waxaad ku dooranaysaa inuu yahay combani soo saara alaab aad iyo aad u tayo sareysa combani ganacsigiisa la isku hadlayn karo oo aamina ayaad ku dooranaysaa waxaad ku dooranaysaa combani sumcad weyn leh inuu yahay waxaad ku dooranaysaa in uu ku siinayo fursad aad ku noqon karto qofka aad doonayso ilaa qof baa kaa dhex guuxaya qof aad jeceshahay baa jirta oo aad rabto inaad noqoto qofkaasuu kuu fududinaya combanigani waa meel aad iskaa u shaqaysanayso oo noloshaadana aad gacanta ku dhigayso markaad shaqaalo tahay noloshaadu gacantaada kuma jirto in badan oo ka mid a waa 8 saacadood oo waqtiga ka mid a markaanay gacantaada ku jirin ee lagu maamulo ee gacanta lagugu hayo ee wax lagu yeedhinayo ee lagu siinayo mishaar yar oo lagaaga jeedinayo keliya ahdaaftii aad gaari lahayd marka waxa weeye noloshaadu gacantaada kuguma jirto laakiin combanigan haddaad kusoo biirto xurriyad ayaa lagu siinaya adiga ayaa ismaamulaya qof bilaadanana uma shaqaynaysid combanigan waxaad ku dooranaysaa muddo 46 sanadooda ayuu shaqaynaya dhaqaalihiisuna marba marka dambaysa waa uu sii kordhaya haddaba walaalo combanigan innaga Soomaaliya wuxuu na soo gaadhay 2018 xarunta deegaanada Soomaaliyeedna waxay ku taala magaalada Hargeysa Nairobi sidoo kale xarun baa ku taala haddii aad joogto Djibouti oo aad warbixintan ka qaadanaysa adigoo jooga Djibouti alaabtu waxay kaaga imanaysaa magaalada Hargeysa Ethiopia sidoo kale guud ahaan Soomaaliya sidoo kale xarunta guud ee magaalada Hargeysa ayaa looga adeegaa xarunta Hargeysana waxay ku xiran tahay magaalada Dubai oo ah xarunta guud ee laga maamulo guud ahaan bariga dhexe oo dhan laga maamulo calamaantan aad arkaysaan hadda ee halkan kaaga muuqda waa calamada yacni wadanada kala duwan ee combanigu uu ka shaqeeyo wey meesha quruxda badan leh waa xarunta guud ee combaniga waa meel sani ah oo qurux badan weeyaan maasha Allah tabarakallah xarunta guud ee combaniga ayaana walaalo halka ku taala haddaba haddii aynu isla soo eegnay ama aynu ka soo hadalnay combaniga iyo taariikhdiisa iyo waxyaabaha ku dooranayso waxaan rajaynayaa in aad ku qanacday inuu yahay combani la isku hadlayn karo haddaba combanigan muxuu soo saaraa alaabtiisa ma tahay alaab loo baahan yahay qodobkaas ayaynu isdul taagi doonaa insha Allah tacaala alaabtan waxaynu ku dooranaynaa combaniga inay tahay alaab ammaana isla markaana dabiiciya isla markaana tayadeeda la hubo isla markaana haysata shahaadooyin aad iyo aad u sareeya waxay ku guuleysatay tartano fara badan oo ay gashay alaabtan suuqeegu waa suuq diyaarsan waayo waa alaab aan dadkiina barnay isla markaana baahideedu ay aad iyo aad u tayo sareysa weeyaan combanigan alaabtiisu waa alaab dabiiciya haddaba guud ahaan alaabta combanigu waxay u qaybsantaa 3 qaybood qayb waxa weeye waa qaybaadka qurxinta guud weeyi qaybna waa qaybaha fitamiinada iyo ma garanaysaa waxa weeyaan caafimaadka guud la xiriira qaybna waa qaybta maareynta miisaanka ayay ka kooban tahay qaybta caafimaadka waxaa ka mid ah productiyo runtii aad u ballaaran oo fitamiina ah ma aha daawooyinkii chemicalska ahaa ee dadka dhibaatada gaarsiinayay laakiin kuwani waa fitamiino inay qofka wax taraan mooyaane aan wax dhibaataa gaarsiinayn weey waxaa ka mid ah walaalayaal alaabtaanu hayno waxaa ka mid ah qaybaha xagga taranka hadday tahay ciladaha xagga raganimada sida qashirka raganimada prostate-ka ciladaha xagga dumarku ay ka cawdaan sida hormoonka iyo waxyaabaha dumarku ay garanayaan ee aadka u faraha badan la hadiyo jeer ay ka cawdaan sidoo kale waxaan haynaa fitamiinada ciyaalka qaybaha lafa xanuunka iyo jilba xanuunka qaybaha waxa weeyaan dadka macaanka qaba ama dhiikarka qaba sidoo kale waxaan haynaa productiyo aad u fara badan oo loogu talagalay guud ahaan caafimaadkeena health and wellness ayaa la yiraahdaa qofka caafimaadka qabana wuu isticmaali karaa qofka xanuunsanayana dee aad baa ugu baahan yahay
maanta gaaska oo kale waa waxyaabahan aadka u iibino dadkeenuna runtii ay aad iyo aad ugu baahan yihiin babaasiirta oo kale digestionka ama dheefshiidka xanuunada ku dhaca calool istaaga waxaasoo dhan waa productyo aad ka heli doontaan wey marka qaybta labaad ee companygu soo saarana waa qayb iyaduna qurxin ah oo aad u ballaadhan oo ka kooban qaybta wejiga iyo qaybta daryeelka maalinlaha qaybta wejiga waxaa ka mid ah waxyaabo aad u isticmaalayso qurxin ahaan iyo waxyaabo ma garanaysaayay xalinaya mashaakilaadka wejiga ku yimaada sida qaybta finanka haaraha gudguduudka wejiga cascasaanka kareemada caadiga ah collagentii oo iyadana insidekaaga kaasoo qurxinaysa oo banaankiina laga arkayo waxaa kaloon haynaa qaybta daryeelka maalinlaha sida waxyaabahaad maalin walba u baahan tahay ma qof aan u baahnayn baa inagu jira daawada ilkaha ma qof aan saabuun u baahnayn baa inagu jira ma qof aan waxaasoo dhan halkan waad ka helaysaa haddaba waxaasi awal qof kale ayaad kasoo iibsanaysay oo tafaariiq ahaan kaaga iibinayay isaguna jumlad ahaan kusoo qaadanayay laakiin hadda haddii aad combanigan kusoo biirto combanigan oo alaabtii soo saaray ayaad si toosa alaabta uga iibsan doontaa insha allahu tacaala hadda barnaamijkan aad arkayso infinite baa la idhahdaa waa qaybta anti aginka ilaa 4 nooc oo laisla qaadanayo weeyaan qaybtan sonya la idhahdaa iyagana skinka noocyadiisa kala duwan oo dhan baa loogu talagalay maasha allah saliidii timaan haynaa waxaan haynaa allahuma mustacaan shaambooyinkii baan haynaa waxaan haynaa allahuma mustacaan daawadii ilkaha saabuunihii cadaraantii ragga iyo dumarka diodoroonadii oo rag iyo dumarba leh alaabtaan hayno waa waxyaabo loo baahan yahay oo kharashaadkii awal kaa bixi jiray aad faa'iido u bedeli doonto biidni illahi kariim weeye maasha allah kariimaadkan aad arkaysa hadda kan oo kale waa day lotion protected day lotion oo kareemkii qoraxda iyo isagoo kareem iskugu jira weeye kaasoo kale waxa weeyaan smoothing baa la idhahdaa kaasoo kale indhaha hoostooda loo isticmaalaa maasha allah kan kale waa toner dhinaca xiga maasha allah tabaaraka allah qaybta kale ee companigeenu soo saaro waa barnaamijka la idhaahdo miisaan dhimista kan iminka aad arkaysaan allahuma mustacaan waxa weeyaan waa C9 program waa barnaamij miisaanka lagu yareeyo muddo 9 maalmooda waxaa kaloo haynaa barnaamij isagana ma garanaysaayay miisaankaaga qofkii raba inuu miisaanka kordhiyo isaguna uu isticmaali doono ayaanu haynaa maasha allah tabaaraka allah walaalayaal waxaan haynaa sidoo kale qaybta caloosha keliya ayaan haynaa guud ahaan markaynu soo koobno hadda ma arkaysaa wow F15 baa la dhahdaa 15 maalmood buu qofku uu qaadanaya waa qaybtii miisaanka C9 haddan idin tusiyo weeyaan kan aad arkaysaan maasha allah tabaaraka allah qaybtan waa qaybta xagga shinnida iyo malabkiyo saafiya ku jira fitaminadii shinnida ayaa ku jira b borboliskii baa halkaa kaaga muuqda b bolinkii baa kaaga muuqda royal jelligii baa kaaga muuqda dhammaan waa waxyaabo xagga shinnida naga soo galay weeye waxaad ogaataa companigan laba waxyaabood ayuu caan ku yahay waa midda koobaade wuxuu caan ku yahay geedka dacarta oo ah geedaha mudaawaadka waxaa kaloo caan ku yahay combanigani waxyaabaha malabka iyo shinnida la xidhiidha qaybtan waa qaybtii daryeelka haddii aad maanta damacdo inaad ganacsi samaynayso oo aad doonayso inaad dhaqaalo samayso adigoo gurigaaga jooga intan keliyaba kugu filan asxaabtaadoo dhan baa wada baahan ma qofaan shaambo isticmaalin baa inagu jira ma qofaan deodoronist u baahnayn baa inagu jira daawadii sadkaa iminka 5 xabeen kugu soo diray 6 xabe halkaa kugu sawiran waa 6 xabo oo qof kastaa ma garanaysaayay uu u baahan yahay weeyaan saabuuntii baa kamid a daawadilkaa kamid a deodoronadii shaambooyinkii wixii oo dhan saliidii timaha yacni intaaba macaamiil markaad u hesho waa waxay bil walba kaa dalban doonaan biidni illahi kariim weeye haddaba walaalayaal waxaad ogaataa alaabtan waa alaabaad adiguna u baahan tahay dadkuna ay wada baahan yihiin qof kasta oo aad garanayso faamiligaaga ha noqdaan asxaabtaada ha noqdaan yacni qof kasta oo taqaano waa waxay u wada baahan yihin wey walaalayaal maasha allah tabaaraka allah haddaba companigan inuu intaasoo waddan ka shaqeeyo uu company sidaa u ballaadhan uu yahay maxaa u sababa waxaa u sababa systemka uu companiga ku shaqeeyo waana systemkaad adiguna companigan uga shaqaysanayso haddaba waxaynu ka soo hadalleen 2 qodob ama 2 su'aalood ayaan kaaga soo jawaabay su-aasha koobaad waxay ahayd muxuu yahay companigan su-aasha labaad waxay ahayd wax soo saarka companigan maxaa ka mid a alaabta companigan waa 2 su'aaloodoo muhiima haddii aad labadaas ku qanacday waxaan isla eegaynaa insha allahu tacaala sidaad companiga dhaqaale aad uga samayn karto iyo shuruudaha ku xidhan ee lagaa rabo marka si fiican u dhegaysa insha allah buuggaaga iyo qalinkaagana soo qaado walaalo companigan waxaa dhaqaale looga sameeya guud ahaan 2 nooc nooca koobaad inaad noqoto wakiil companigan alaabtiisa sii beecgeeya oo sii iibiya nooca labaad in aad walaalo kale kusoo xidho companiga oo iyagana tiimkaaga noqdaan walaalahaas oo iyaguna alaabta companiga sii beecgeyn doona oo sii iibinaya waa 2 fursadood oo companigu ku siiyey haddaad tiraa mid un baan ku koobnaanayaana
يعني waxa weeyaan haddaad tiraad tusaale alaabtoo keliya ku koobnaanaya waad ku koobnaan kartaa alaabtoo keliya waad iibin kartaa laakiin ummaddeeni oo dhan baa wada bila camal ah oo waxaad ummaddeeni ku caawin karto oo shaqo abuur aad u samayn karto maxaad ku diidi adigana lacag lagu siinayo bonus iyo commission lagu siinayo haddaba maxaa ka mid a faa'iidooyinka markaad walaalo kale company kusoo xidho maxaa adiga faa'iide kuugu jirta waxaa kuugu jirta inaad ka samayso companyga dhaqaale aan xadidnayn waa shaqaad xilligaa doontaad qabsanayso waa shaqo aad tiimamkeennii hore u jiray aad ka mid noqonayso oo tababarkii lagu siinayo waa meel hadafkaaga aanu kula qorsheynayno systemka companyguna uu ku caawinayo waxaa weliba lagu siin doonaa fursadaad adduunka o dhan dhaqaale uga samayso haddii adiyo tiimkaagu aad noqotaan dad isfahma oo wada shaqeeya oo dad la shaqaynta iyo tiim la shaqaynta aad ku wanaagsanaato companygana hadhow toole iib fiican baad soo gelin doontaa iibkaa wanaagsaneed soo gelisay ayaa shirkaduna waxay ku siin doontaa abaalmarino waaweyn oo ay ka mid tahay dalxiisyo oo ay ka mid tahay ma garanaysaa gawaadhi oo ay dalxiisya ka mid yihiin waa meelaha sarsare ee companyga laga gaadho biidnillahi kariim weeye haddaba walaalo maxaanu qabanaa shaqadaanu qabanaa 3 qodob ayaa u muhiimsan oo aad qaban doontaa markaad companyga kusoo biirto qodobka ugu horeeya waxa weeye inaad adigu noqoto macmiil naftaada aad u noqoto waayo awalba shaambada iyo saabuunta iyo wixii haddaan ka warramayayba qof kale aad ka iibsan jirtay laakiin halkan markaad kusoo biirto adigaa tukaan laguu furaya oo companyga lagaaga dhex furaya naftaada ayaad macmiil u noqonaysaa naftaadii markaad macmiil u noqoto waxaad samaysanaysaa sidoo kale 20 qof ama ilaa 30 qof oo iyaguna macaamiila oo iyaguna alaabta kaa iibsada oo iyaga tafaariiqaad kaga iibiso halkaa alaabta aad ka iibinaysana lacag baa kaa soo geli doonto waa macaamiishii aad ka iibisay dukaankaaga weeye sidoo kale waxaad samaysan doontaa koox yar oo tiima kooxdaa yaree tiimka ah oo iyagana ah kuwa aad fursadan ganacsiga companyga aad la wadaagtay ayaad samaysanaysaa haddaba walaalo marka aad kooxdaa samaysato bonus bilo ah ayaa kuu bilaabmaya marka aad walaalo kale companyga aad ka siibiso alaabtana lacag maalinle ah ayaad samaynaysaa insha allahu tacaala koox yar baad samaysan kooxdaasaa sii ballaadhan guulo waaweynna waad gaadhi insha allah haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso sidee ayaan u dhisi karaa ganacsi guulaysta companygan waxaad u dhisi kartaa adigoo kor u qaadaya iibkaana waxaa lagu cabiraa cabir la yidhaahdo cc gu markaa muxuu yahay cc gu waxa weeyaan mataqaanaaye waa waxa loo yaqaano dhibca yaryar weeye iminka barodhagan aad arkayso waa aloe vera gel waa dacar saafiya ciladaha calooshoo dhan bay u fiican tahay qiimaha Canada markaan joogo lacag gooniya ayay ugu joogtaa markaan joogo Djibouti lacag gooniyay tahay markaan joogo ma garanaysaa Mareykanka lacag gooniyay tahay laakiin mar walba CC-geegu waa isku mid oo wax isbedel maaha deodoronada imika CC-geegu waa ka halka kaaga muuqda weeyaan marka CC-gu waa cabir lagu cabiro kolba ganacsigaagu meesha uu marayo halka ma isla garanay haddaba darajooyinka companygan aad ka gaadhayso waxaynu ku cabiri doonaa mar walba CC-gaasaynu ku cabiraynaa kuma cabirayna dollarkaaga okay dollarkaaga waxaan u bedelaynaa cc baa loo bedelayaa lacagtaada faranka lacagtaada shilinka wax walba maxaynu u bedelaynaa cc baynu u bedelaynaa insha allah haddaba waxaad ogaataa halka cc markaad cusub tahay ee aad waddankeeni joogto lacag ahaan wuxuu u dhigmaa 273 hadhow markay alaabta kuu jabtana wuxuu noqon doonaa $200 haddana wuu sii jabi ilaa 180 saasuu socon ilaa 150 buu marka ugu dambaysa halka cc lagaa siin doonaa alaabtii un laakiin waxa isbedelaya marka soo alaabta kuu jabto intii xaddigii alaabtii lagaa siinay shalay 273 lagaa siinay intii in leg ayaa hadhow kuu sii jabaysa macnaha waxa weeyaan discount-kaagu markastuu weynaado oo companyga meel fiican aad ka gaadho alaabta waa laguu sii jabinayaa markastoo alaabta laguu sii jabiyana faa'iidadaad ka helayso ayaa sii badanaysa halkaana ma isla fahnay haddaba area of income meelaha dhaqaale companyga laga samaynayo companyga waxaa dhaqaale ka samayn doontaa dhaqaale maalinle ah oo maalin kasta kaba soo qaad maalintii $20 baad faa'iidaa bishii maxay noqonaysaa $600 kaba soo qaad $10 baad faa'iidaa maalintiiba $10 maxay noqonaysaa bishii $300 oo dheeriya ma dhulkaa laga helaa lacagtaasi kaba soo qaad maalintii $40 baad faa'iidaa waa imise waa lacag badan macnaha alaabta maalinle ah aad u iibinayso waa cash maalinle ah oo ku soo gelaya iminka haddaan iibiyo barodhagaasi maanta haddaan iibiyo waxa weeyaan inta laga siiyay waan garanayaa intaan ku iibinaya waan garanayaa okay marka dhaqaale maalinle ah alaabta ayaad ka samaynaysaa dhaqaale bilo ah ayaa jira oo isagana laga sameeyo xagga teamka walaalo kale markaad company kusoo darto companyga waxa weeyaan
isaga ayaa kuu soo diraya lacag commission la yidhaahdo kuu soo diraya commissionkaasi oo ka imanaya profitkii aad marka horeba qofkan ka heli lahayd ayaa commission ahaan lagugu soo diraya oo companyga kuu soo diray maadaama companygii aad lacag soo geliso iyo kharash soo gelisay ayuu isaguna abaalmarin oo ku siinaya waqtigaad bixisay uu ka iibinaya maasha Allah tabarakallah halka marka lacagta bisha waxa la qaataa bishii baa la qaataa bil walba 15keega ilaa 18keega la qaataa hadhow haddii aad dadaashana lacag kumayaal doolara oo abaalmarina ah ayaa companyga laga helaa haddaba walaalo waxaynu ka soo hadalnay macluumaad fara badan waxaynu soo gaadhnay qaabkii aad ku bilaabi lahayd ganacsigan waxaad ku bilaabi ugu horreyn isdiiwaangeliso diiwaangelinta waa lacag la-aan waa free magacaaga emailkaaga iyo xilligaa dhalatay keliya ayaan u baahannahay qofka clipkan kuu soo diray ayaana ku diiwaangelin doona kadibna waxa xiga waxa weeyaan inaan magaranaysaa account lagu furo passwordka lagu siiyo wixii oo dhan lagu diyaariyo kadib intaa marka lagu sameeyo serviceka ama adeega lagu sameeyo waxa xiga magaranaysaa inaad iibkaaga ugu horreeyay aad samayso iibka ugu horreeya markaa waxa laga rabaa inaad gaadho darajada koowaad sababta darajada koowaad u buuxinaysaa maxay tahay marka isdiiwaangeliso waa 3 faa'iido faa'iidada koowaad alaabtu way kuu jabi marka isdiiwaangeliso horta soo dhaweyn baad helaysaa 5% marka darajada koowaad gaadhana waxaad heli 30% baad alaabta heli sidoo kale waxa lagu ogolaan inaad walaalo kale companyga ku soo xidho abaalmarino dheeri ahna iyadana bishii waa lagu soo diri doonaa oo iyagana gooniyana waa lagu soo diri doonaa haddii ilaahay dhado haddaba darajada koowaad waa darajo aad iyo aad u muhiima adduunkoo dhan ayaa weliba laysan lagu siin doonaa iyadana ina dhaqaale uga samayso su-aasha waxay tahay markaa sidee baan darajada koowaad aan ku gaadhayaa waxaad ku gaadhi laba qaabka koowaad inaad hal mar adeegato bogos xidhan oo alaaba oo $410 $410 waxaa ku jira alaabo kala duwan baa ku jira companygu kuu diyaariyey alaabta loogu jecel yahay ee la isri markaaba way ka bixi kartaa qofkan cusub ayaa laiskugu soo daray bogoskan waana lagugu soo dirayaa intaanad ganacsiga bilaabin marka haddii aad ku qanacdo isaga bogoska ayaad qaadan lacagta waqti xaadirkan bogosku waxa weeye waa $410 haddii aad Djibouti joogto waa 74,000 oo lacagta Djibouti farana Kenya haddaad joogtana waa 56,000 oo lacagta Kenya ah bisha January 2025 ayaan ka hadlana waqtiga iminkaan joognaan ka hadlaynaa haddaba walaalo qaabka bogoska waad ku gaari kartaa darajada koowaad waxa kaloo darajada koowaad ku gaari kartaa inaad 2 bilood gudaheed aad ku iibsato $545 adiga oo yaryaraysanaya ama ma garanaysaa hal mar buuxinaya ama hal marna waad buuxin kartaa $545kaasi waanad yaryaraysan kartaa $99 ilaa $100 iyo wixii ka badanna waad ku dalban kartaa dalabkaaga koowaad 200 baad ka dhigan kartaa 300 baad ka dhigan kartaa yacni 2 bilood baad iska yaryaraysanaysaa ama bogoskaas aad qaadan ama $545kaas ayaad qaadan $545 wuxuu kaga duwan yahay $410 wuxuu kaga duwan yahay kan adiga ayaa dooranaya laakiin bogosku waa alaab ay shirkadu kuu diyaarisay waxa kale uu kaga duwan yahay darajada halkaas $545 ku gaadhayso bogoskan ay dadka badankooda ku bilaabaan xagga lacagta markay ka fiiriyaan sidoo kale waxa weeyaan $545 wuxuu kaga duwan yahay waa waxaad yaryaraysan karto oo 2 bilood gudaheed aad ku buuxin karto wey adiga markaa go'aankaaga qaado hadda qaado go'aankaaga ma bogoska kuu fiican waad ku bilaabi mise alaabta labada cc ayaad iska yaryaraysan ama hal mar baad buuxin oo waad iska doordooran taas waa go'aankaaga waxaad la wadaagay qofka caawa ku soo casuum qofka maanta kulanka kuu soo diray insha Allah haddaba walaalo bogoska waa alaab promotion weeyaan darajada koowaad markaad gaadho waanu ku hambaliyeen sida gabadha walaasheen oo laga yaabo inaad garanayso markaad darajada koowaad gaadho waanu ku soo hambaliyeenaa kadibna darajada labaad ayaanu kula qorsheyn darajada labaad dhaqaalaha uu kordhi waayo qiimo dhimistii waxa heli ilaa 38% darajada labaad ilaa $700 lacag ku dhow ayaa qiyaastii la sameeyaa maasha Allah tabarakallah sida inanta walaasheen ayaanu mar kale ku soo hambaliyeen doonaa kadibna darajada saddexaad baynu ganacsiga gaarsiin oo loo yaqaan assistant manager qiyaas ahaan lagu qaatay $1,400 bishii waxa weeyaan alaabtana laga sameeyo faa'iido dhan ilaa ma garanaysaayay 43% maasha Allah tabarakallah kadibna waxaan u gudbay darajada ugu qiimaha badan leh ee hodantinimada ama wealthy levelka la yiraahdo oo iyadana loo yaqaan darajada managerka dhaqaale ahaanna ma garanaysaa ilaa $2,700 bishii lagu qaato maasha Allah tabarakallah iyo wixii ka sareeya mar haddii dalka gaadho managerka ama darajada afraad gaadho walaalahaagii kale ka hooseeyay unbaad ka caawin si iyaguna halka kusoo gaari lahaayeen haddii aad 2 qof caawiso senior manager baad noqon dhaqaalaha ilaa $5,000 qiyaastii weeyaan ayuu gaadhayaa
kadibna soaring manager ayaad u gudbiya waa 5 qof sida gabadha hadda kaaga muuqata kadibna safari manager anigu hadda safari manager kaasaan ahay oo dhaqaalaad fara badan oo ilaa 720 oo dollar bishii qiyaas ahaan noqonaya wey ilaa halkaas aad u socon yani mar walba ganacsigaaga oo walaalo kala aad manager ay soo gaadhaan teamkaagii adigna waad sii badanaysaa ganacsigana waa meel aad koritaan fara badan samaynayso sida hadda kaaga muuqato walaalkan bishii koobaad 80 dollar buu faa'iiday bishii kale ku xigtay 278 bishii kale ku xigtayna 610 dollar walaalkan kale arkayso ma sha Allah tabarakallah bishan dhaqaalihiisu wuxuu ahaa 9,000 buu ahaa kadibna wuxuu dhiniyo ka badan ma samayn karin bishii kale ku xigtayna wuxuu sameeyay lacag la 11,000 bishii kale ku xigtayna lacag wuxuu sameeyay la 15,000 halkan walaalkan Cusmaan waa aniga kula hadlaya ma sha Allah tabarakallah dhaqaalii ugu horeeyay company ka sameeyay wuxuu ahaa 335 dirham ma sha Allah lacag la 90 dollar u dhiganta way muddo sanad gudaheedana dhaqaalaagu la 2,000 lacag ka badan dhowr kun oo 5,000 lacag ku dhow buu gaaray ma sha Allah tabarakallah sanadkii dambana wuxuu gaaray la 25,000 sida bisha shanaad oo ahayd bishii 2020 way markaad arkaysaa halka sida bisha shanaad oo ma garanaysaa bishii aan ugu dhaqaalaha badnaa ahayd marka waxa way runtii ganacsigana waa ganacsi nolosheeda bedelay adigana noloshaada bedeli doona biidnillahi kariim haddaba markaa darajada managerka gaadho waxaa la helaa abaalmarino kala duwan waxaana ka mid ah abaalmarinta gaadhiga oo isagana gaadhiga ugu yari uu yahay lacag ilaa 14,000 dollar muddo 3 sano ah gaadhiga ku xigaana uu yahay 21,000 muddo 3 sano ah gaadhiga ku xigaana uu yahay 28,000 muddo 3 sano ah waxa ku xiga markaa waa dalxiisyadii company-ga oo iyagana kala duwan oo ma garanaysaa ilaa 2 dalxiis company-ga laga helo hadiyada ugu qiimaha badan leh waa hadiyada inaad company-ga share ku yeelato oo lacag malaayiin dollar ah halka lagu helo halka waxa kaaga muuqda walaashan Aisha oo team badan la sawiran waana dadkii ay soo caawisay gabadha Soomaaliyeed ee ka caawisay si check ku helaan iyaduna runtii dhaqaale fara badan ay company-ga ka samaysay lacag ilaa 4 milyan oo dollar ayay muddadii check ay qaadanaysay ka samaysay halkan waa checkii koobaad ee company-ga ay ka samaysay lacag dhan 25,000 oo dollar kadibna sanadka sana ku xiga way sii dadaashay 349,901.280 oo dollar waa lacag aad badan Soomaa waa lacag nus milyan ku dhaweey ayuu gaaray nus milyan iska dhaw 350,000 oo dhaqaale aad badan halka waxay nooga muuqatay inuu company-gan yahay company qaniya dhaqaale fara badan dadka u ogol dadka shaqaysanaya dadaalaya kadibna sanadkii sanad ku xigay wuxuu gaaray dhaqaaleegu ilaa 380,000 saasoo hore ugu socday ninkan meesha kaaga muuqda waxa loo yaqaanaa Regismount sanad walba wuxuu sameeyaa dhaqaale aad u fara badan ayuu sameeyaa haddaba walaalo waxaan rajeynayaa xukuuma dhinna warbixintii oo dhan waad qaadatay kaliya su'aalo yar oo dheeriya haddaad qabto waadna soo wici markaad warbixintani aad insha allahu tacaala dhammaystirato maxaa lagaa rabaa tallaabada koobaad inaad magacaaga hadda soo gudbiso waa tallaabada koobaad si account lagugu sameeyo qiimo dhimistii ugu horeysay 5% inaad u hesho kadibna dalabkii ugu horeeyay ama iibkii koobaad ayaad sameyn si aad mataqaanaayay aad darajada koobaad u gaadho laba mid bay noqon markaa inaad bogoska qaadato iyo inaad iska yaryaraysato ama aad hal marba buuxiso haddaad 500 ku bilaabayso 545 ku bilaabayso waa alaabta iska dooranayso waa caadi haddaad laba jeer ka kala dhiganayso sida caadiga hal cc markaad qaadanayso 273 soo noqonayso waa caadi haddaad 200 ku bilaabayso waa caadi muhiimad waa inaad bilowdo weeyaan muhiimadda inta xamaasadda iyo energy kugu jira ee tamartaada hayso inaad ka faa'iidaysato weeyaan muhiimadda koobaad dalabkaaga ugu horeeya samee cabsida iska daa company-ga wuxuu shaqeynayaa 46 sanadood anigoon khibrad lahayn aan weligii waxba iibin ayaa alxamdulillah nolosheeda ku bedelay adiguna noloshaada waad ku bedeli kartaa walaalo biidnillahi kariim anaguna waxaan diyaar ku nahay inaan ku caawino ku garab istaagno go'aankaagana ka dhabee wax kastana meel tallaabada يعني قف هذا رأيته كل ما يلصعدي كوبو كبلاوي أوكي ما أنت هذا بلو تهاي وعنا وحويان هل كان ما أنت نشوفنا إن ما أنت هنسوق قارني وحنكون من طلابة أنو سوق قادني أدينا طلابة ديم بالجارة بإذن الله كريم لقامنا لها كومبينين مركها هذا بدري كذا كوباد أياد بوحين دونتا أما هل مرباد بوحين أما واتسكير ريسن كده مركها دري كذا كوباد بوحيسو واحد نقول حبين بوحدة وإحنا لقوه قلان إن الوكيل نقطه ولا لك لنا كومبينيga ku soo xidho insha Allah ta'ala haddaba labadan qaab midkood qaado inaad isla maanta xubin buuxda noqoto oo stock ugu horeeya alaabta ugu horeysa aad iibsato oo bogoskaaga aad la cararto oo la boodo waqtiga intuu ka dhicin insha Allah biidnillahi kariim fursadaha jira inaad ka faa'iideysato waqtigana ka faa'iideysato ama inaad iska yareysato biidnillahi kariim haddii aanad awoodin aad baad u maasan tahay waqtiga qiimaha badan leh ee ku bixisay clipkan iyo warbixintan inaad qaadato magacaygu waa Cusmaan dhammaanba waxyaabaha hadda aan kuu soo sheegay oo dhan muddo yar kooban baan ku gaaray Soomaali ahaan intii ganacsiga soo gaadhina qofka darajahan ugu sareeyo baan ahay insha Allah ta'ala haddii aan anigu ahay qofka ku soo diray clipkan
dib igu soo celi la soo hadal insha Allah wixii su'aalana waan kaga jawaabi haddii qof kale oo teamka la shaqeeya uu kuu soo dirayna isaga la xiriir biidnillahi kariim si uu kuu caawiyo kuu saboor gareeyo macluumaadkaagana u dir wada shaqeyn wanaagsan waxaan diyaarnahay noloshaada sida ay maanta tahay si ka duwan inay noqoto inaan isbeddel ku samayno in dariiqii aanu soo marnay kaga faa'iideyno laakiin waxaa lagaa rabaa go-aan baa lagaa rabaa geesinimo leh wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu